mudaharaad laga soo horjeedo celinta dadka qaxoontiga ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa ka qabsoomay dalka Jarmalka. Wariyahayaga ayaan la mudakar ayaa inoo faafahinay. magaalada Wiesbaden ee gobolka Hessen ayaa waxaa ka dhacay banaanbax aad u ballaaran waxaana banaanbaxaasi ka soo qayb galay jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan dalkan Jarmalka. banaanbaxan oo ujeedkiisu ahaa sidii wax looga qaban lahaa celinta qaxoontiga oo ay Soomaalidu ku jirto. dhawaan ayay ahayd markii wiil Soomaaliyeed oo ku nool muddo 8 sano ah dalkan Jarmalka dib loogu celiyay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. goobtii uu banaanbaxaasi ka socday ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha dalada guud ee Soomaalida ee dalkan Jarmalka Xasan Buraale, Kamal Jaamac Muuse gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee magaalada Darmstadt, Safiya Kaynaan Safiya Power oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha qaxoontiga gaar ahaan arrimaha haweenka iyo dhalinyarada oo iyagu halkaasi ka hadlay ayaa wax hadaladoodii ka mid ahaa isdaba jooga oo dalkoodii maanta haddii lagu celiyo ay dhibaato kala kulmayaan kuwaas oo ay tahay ay xaq u leeyihiin inay sharci helaan. waxyaabaha kale ee jira sida maaragtay hay'adaha u dooda xuquuqda kuwaasoo ay barbar gelayaan sidii ay maaragtay dadka sharci u heli lahaayeen. waayo sababtoo ah dadka inay maadaama ay bini'aadan yihiin inay xaq u leeyihiin inay sharci helaan kuwaasoo ay xeerasha caalamiga ah ee United Nations ay sheegeen ay ku cad yihiin qodobadaasi kuwaas oo lagaga hadlayo si loogu baraarujiyo dawladda Jarmalka sidii ay sharci dadkaas dhammaan u heli lahaayeen. Aan magacaygu waa Safiya Kaynaan waxaan ka mid ahay jaaliyada guud ee Jarmalka. waxaa maanta halkaan u nimid banaanbax weyn oo looga hadlaayo dadka la masaafurinaya ama kala abshiibunku ay tahay ee loo masaafurinaayo Soomaaliya. waxaa maanta ahayd banaanbax weyn oo looga hadlaayo abshiibunka maadaama anaga aan Soomaali nahay waxaan uga soo qayb galnay magac Soomaaliyeed. waxaan leeyahay dad qof kasta oo Soomaali ah oo haysto abshiibun yuula aamusin ururada oo magaalooyinkiisa ka jira ha ula tago. mudaharaadkaasi oo sababtiisa tahay dadka Soomaaliya lagu celinayo oo Jarmanka intay go'aansadeen intay tarxiilaan. waxaa meeshan maanta iskugu imaanay inta dhahna anagoo hal wada cod wadankaanayta siiba gaar ahaan ay ku soo badatay gobolkaanayta deganahay Hessen oo mudaharaado badan ka jiray sida loo celiyay wiil Soomaali. maanta anagoo urur ahaan waxaan inta iskugu imaanay aan dadka Soomaalidana ugu keenay meeshaanayta sida aan u garab siino walaalaheena dhibeysan oo stress hayo oo mar walba la dhahay waa lagu celinayaa isdiyaari ayagoo muddo wadankaanayta joogeen ayagoo shaqaysanaya ayagoo ceer qaadanaynin ayagoo gaari wata ayagoo magaranaysa family inta kule ayagoo xanuunsan gibigoodba waxaa la leeyahay waa lagu diiday qaxootinimadaada ma la aqoonsana waa inta wadankaada lagu celiyaa. waxaana aan cod dheer iyo cod gaaban buu ugu direynaa dawladda Jarmalka sidii arrimaha qaxootiga wax ugu bedelaan. caasimada gobolka Hessen Wiesbaden waxaan u joognaa inaan ka dhiidhino ummadda la tarxiilayo ay ka mid tahay Soomaaliya. gobolkan Hessen wuxuu bilaabay sidaan hadda ka hor baan sheegnay tarxiilida ummadda Soomaaliyeed la tarxiilayo amba dhalinyaro ha ahaato ama qof weyn ha ahaado qofkii oo tahriib soo galay dhibaato intaas badan soo galay oo soo maray wadadii la arkay soo maray haddana intaas oo qarasha oo soo maray wadankana wax badan joogay sida hadda walaalkeen Cumar oo mar dhaweyd Soomaaliya loo tarxiilay kaasoo joogay 8 sano wax ku dhow haddana ma taqaana dib Soomaaliya loogu celiyay ayaan ka soo horjeednaa maadaama xaaladaas hadda ay soo badanayso wada. bin jetzt in Rente seit einem Jahr. Vorher war ich Sozialpädagogin und habe Flüchtlinge betreut. Mein Job war es, in den Aufnahmeplätzen und Unterkünften Sprechstunden anzubieten, habe mit den Leuten Anträge ausgefüllt, Integrationskurse vermittelt, Umzüge organisiert, all diese Sachen. Von daher kenne ich ganz viele Flüchtlinge und es waren immer viele somalische dabei, mit denen ich sehr gern gearbeitet habe. ويا المذكر MMTV Jarmalka.